iskuulka dugsiga dhexe hoose ee kulmiye ee ku yaala degmada Ceelbeeg gobolka Sanaag ayaa in ka badan 50 arday waxaa gacanta ku haya ururka wada tashiga Garad Cabdalle ee ka jira gudaha iyo dalka dabadiisa ururkaas oo markaas ka bixiya lacag fee ah uguna talagalay ardayda agoonta iyo dadka danyarta ah haddaba si aan arintaasi aan wax uga ogaado gruubkaasi ardaydaasi danyarta ah iyo agoonta isugu jirta sida ay markaas u taakulayaan ayaa waxaan wax ka weydiiyay oo ka wareystay maamulaha iskuulka hoose dhexe ee degmada Ceelbeeg gobolka Sanaag kulmiye iskuul maamulaha guud ee iskuulkaasi Cabdillaahi Poste oo iga waramay gruubkaasi sida ay markaasi iskuulkani gacanta ay ugu hayaan ardayda agoonta iyo kuwa danyarta ah ee ku nool magaaladani marka hore jaaliyada oo salaamaya assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh salaam kadib fasalkii taageerada sii jirteen oo fasalka hadda Maxamed soo sawiray sawirkiisa waa heli doontaan haddana waxay marayaan fasalka labaad marka hawsha qaabasheen waxay ahayd sanadkiisii koowaad waxbarashadu way fiican tahay maadooyinka asaasiga way wada qaataan carabida bay qaataan diinta bay qaataan xisaabta bay qaataan sayniska bay qaataan cilmi bulshada bay qaataan ingiriiska bay qaataan maadooyinka asaasiga way wada qaataan way fiican yihiin waana danta yaraa runtii aad bay anagu awal badii iska baahan dugsiga oo isaga badan yahay danyar waxa soo dadku xoolo ka soo xiraday waxaan meesha ku haynaaba oo iyagoo kale macallimiintu ba dhaxda iska xirato frontier-ka isaga dhigta laakiin meesha waxay mid xoolo loo degay dadka xoolo ka dhamaadeen ba meesha maraya marka saddex meelood laba meelood dadka xoolo ka dhamaadeen marka horta waxaan haynaa meesha noocooda ba laakiin idinku markaas boorka waad siisaan waxaan leeyahay saddex magaalo markaas siisaan inta ku mahadsantiino يا وحي وحي بلغاتي ولكن وحنو كو أصل لاين إن هذا كردستان أو عقب كلاكشر وكراسي واتشابيس أو وحبل الباكشر أنت قررون بدانتان أنت قررون بدانتان لكن وحنو نديها كاسي ولا يدخلوا سوق تدوروا توسعوا سيسمى شفتوا تدخلوا حول نقطة سكاها بعدين هو بدانتاي معلومته في الدير ما يصيرش غيسا marka dugsiga taageer wada bay baahayn waxa saleega macallimiinta xaga kuraasta xaga koodan marka inta ku mahadsantiin khalaad waxaan leeyahay ka kordhiya waan leeyahay si dadaala fasalkina waa kala idin soo sawiray wada fiican waxbarashadu waa fiican tahay wala dadkii danyarta wasu jiraan hal waa dayar toddoba afarta arday baa fadhiyay toddoba afartan arday agoon ma وأبلا وليه لو عبايس هو يلو عبايس هو يلو أبلا ويسوي كذا لكن دتك المساكين تاولوني ولا نقولي ساس بالون تايدي وضيعتها لكن أقول سوسو عدنا ما أورن فصلنا كلي كبر حنا قوم تدي اللي سوي عيود ما شرتا فصل يجا أجارة أو إسكالي هند دتك ضيعتها كودكتان لبدا قلين با مس حل جو أو كلا بدشان حل هذا أي فصل قارة يوم بس ما له فصل قارة عدنا سكتة بدحلا waan gartay marka qaybo ka badan baa jirta iskuulka oo hadda dhismo u baahan iyaga ma kala tashateen maadaama groupku in ay dadka danyarta ama agoonta fasalla gaar ah isaga leeyihiin wax loogu dhigo ay u dhisaan jameel waxaan ku codsanaynaa iyaga tamartooda oge inay kordhiyaan haday muqallisi karaan haday kuraasi keeni karaan haday silariga kordhin karaan waxay qaban karaan inay inta ka kordhiyaan baan ku codsanaynaa groupka wada tashiga Garad Cabdalle ayaa isagu in muddo ah iskuulkaasi dugsiga dhexe hoose ee kulmiye Ceelbeeg waxay taakuladaasi ay ku wadeen in ay markaasi ardayda agoonta iyo dadkii soo xorooday ee danyarta ay xoolihii ka dhamaadeen in ay xagga fiiga ay kala tacaalaan inkasta oo maamuluhu uu ka codsaday in wax badan ay ka qabtaan lacagta fiiga ay bixiyaana ay intaasi ay ka sii kordhiyaan وأحمد عبد الله عيسى أحمد عاشور دقمة Ceelbeeg ee gobolka Sanaag